الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أحبتي في الله waxaan jeclaystay inaan idiin soo jeediyo kelimad yar oo kooban oo ku socota ahlul bid'ah kelimadani waxaan rabaa inaan niigu ifiyo ahlul bid'u say u nacaan aahaarta iyo ahadiitha ku timiday Ilaahay subhanahu wa ta'ala tilmaamihiisa iyo sifaadkiisa iyo diinta dhanba say u karhaan marka bal insha Allah ta'ala waxaan jeclahay qaybo yar inaan ka yartaa taabto way badan yihiin waxyaabo fara badan oo aasaara oo ku soo arooray baa jira baqtigooga iyo waxay daldalaan laakiin bal biidin Ilaahi jalla wa ala waxyaruun han ka taabto ragga afkaartooda iyo baqtigoogu sida uu yahay kitaabu sunnah للإمام عبد الله ابن أحمد ابن محمد ابن حنبل الشيباني رحمه الله تعالى waxa uu soo guuriyay hadal uu iska leeyahay ninka loo yaqaano Amr ibn Ubayd al-Mu'tazili baab dhan buu u baabaystay oo la yiraaho ma qalathu al-ulamaa'u fi Amr ibn Ubayd ninkan Amr ibn Ubayd la yiraaho waa nin ru'asaa al-Mu'tazila kamid ah wuxuuna geeriyooday ama Ilaahay uu halaagay inkaariha ku dhacday boqol 43 markay hijriyada ahayd hijrada nabiga calayhi salaatu wassalaam hadalkan bal kitaabka ku jira ila fiiriya wuxuu leeyahay ninka loo yaqaan Thabit al-Bunani rahimahullahu ta'ala ra'aytu Amr ibn Ubayd wa huwa yahukku al-mushaf faqultu ma tasna' qala uthbitu makanahu khayran minhu wuxuu yiri ninka loo yaqaan Amr ibn Ubayd ayaan arkay wa huwa yahukku al-mushafa asaga oo waliba kitaabka xoqa ayaan arkay yani kitaab quraan markaasan ku dhahay war maxaad sameynaysaa wuxuu yiri waxa weeyaan wax ka khayr badan tan ayaan sameynaya falka nooca ah waxa kale oo sameeyay wasakhdii la oran jiray Jahm ibn Safwan alayhi la'inullah asagna falka laftarkiisa uu sameeyay bal kaalaya ila arka kitaabka loo yaqaano khalqu af'aali al-ibad lil-imam al-Bukhari wuxuu leeyahay al-imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala bacda sanad marka laga soo gudbo wuxuu yiri ninba waxa jirayay ay Jahm ibn Safwan ay saaxiib ahaayeen muddo ka bacdina waxa weeyaan uu ka goostay wuxuuna noqday ninku adag kuna xumaada asagii markaas lagu yiri war ninkan maxaad saa ugu galaysaa saaxiibaatihiina marka maalin buu u laagay asagoo meel fadhiyo Jahm ibn Safwan baa la leegay marka wuxuu ku yiri maxaad saa ugu galaysaa wuxuu yiri waxaan la iman karin oo la qaadi karin ayuu ninkan la yimiday idan muxuu la yimid ninka ka sheekeeyay wuxuu yiri asagoo maalin maalmaha kamida kitaabka quraanka akhrinaya ayaa marka uu soo gaaray aayadii suuratu Taha aayada shanaad ee Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu leeyahay ar-rahmanu 'ala al-'arshi istawa ayaa wuxuu yiri إلهي بان قدارتي والله لو وجدت سبيلا إلى حكها بيري لحككتها من المصاحف هدان هلي لها وضعان كغتر أما أن كغحقه كتبت قرآن كأردن وان كحقي لها مرقا وحويان إذ بدرو هل كأي كجارين أهل البدع حتى نصوص ما احترامان نصوص تنا احترام مرنا أنا ما أصميان طيب هذا كان waxa kale oo soo guuriyay rag fara badan waxa soo guuriyay ninka loo yaqaano al-Imam Ibn Battah al-Ukburi ayaa soo guuriyay kitaabkiisa loo yaqaano al-Ibanatu al-Kubra mujalladka labaad safxada 170 raqamka atharkiisu uu yahay 2391 iyo 2392 ayuu ku keenay iyo waxa kale oo soo guuriyay Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbal في كتابه السنة رقم بقول تضباطا إيشان طيب لبضاني ناديها هيسان مدي وحو أها نينك اللو يقانو جهم بن صفوان إيو عمر بن عبيد نين صدح هذا هان قدرو نينك اللو يقانو
بشر ابن غياث المريسي وأصغنا إبليس كلا بل هذا الكيسا فيريا كتاب السنة لحرب بن إسماعيل الكرماني رحمه الله تعالى وحسو قورنا يا هذا الكنتن الإمام يزيد ابن هارون الواسطي رحمه الله تعالى أيا مالين وحويا مالمها كمدة نمبا وحو كيري يا أبا خالد سمعت بشر المريسي يقول في سجوده سبحان ربي الأسفل. فقال يزيد بن هارون الواسطي رحمه الله تعالى لئن كنت صادقا إن بشرنا المريسي كافر بالله العظيم. وحيري مالين مالمها كمدة يزيد بن هارون الواسطي نمبا وحو كيري أبا خالد وحان مقلي نينك لو يقان بشر ابن غياث المريسي أصغو أو سجود يو وليب سجود كله سبحان ربي الأسفل وح حمان كان زهن ربي هو سيع بل إذا بدردا أفر صدا أحاديث النبي وحا كتم يدي سبحان ربي الأعلى ربي سريع يعني وحو ديدن هي سرينت إلهي رجا وحان فهمي لا أنا هي وحا قدري إلهي سرينتي سيئو ديدن يهين إمكاذا وحان أركين نينك اللو يقان جهم بن صفوان أو ديدن الله سبحانه وتعالى سرينتي سآيادة كهالليس الرحمن على العرش استوى إلها نحريستها وحو ككرم مري أما أو كسرية عرشيس أيو كسرية وغريب إي عجيب مركلة حد عن فيرنو نينك اللو يقان بشر بن غياث المريسي كتاب السنة للإمام أبي بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال وحولي هي رقمك كنت ضابق اللباتني أفر وحوي رفيرية. قال سمعت الشافعي يقول ذاكرت هذا الحديث المريسي يعني حديث قرعة بين 6 الأعبد فقال هذا قمار. وحويري الشافعي رحمه الله تعالى نينك بشر المريسي لو يقان أيا حديث كني أيان وحويان أشيغي حديثكو وحديث نبي أحمد باصوصاري الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى في مسنده إيو ابن أبي شيبة حديث وحوت الماما يا أحد من الصحابة أيا دنتي أو جريودي مركو جريودي كبعدي وحويان انتو نجريون كهر الضوما أولها أيو وحويان دمانتين حربا وذتين حديث كاسوت الماما يا markaasuu nabiga calayhi salaatu wasalaam hawshii buu aad uga xanaaqay uu ka cadhooday wuxuu yiri dhammaantiin xor ma wada tihiin waad qori tuuranaysaan marka maxaan ku yiraahaa xadiiskaasi ayaa la xusuuyaa ninka Bishr al-Mirisi maaragtay loo tilmaamay markaas wuxuu yiri xadiiskani qurcada la qori tuuray nimankaasi adoomada ah waxa weeyaan waa khamaar buu yiri khamaar ayuu yiri bal idab daradiisu inta la eg tahay fiiriya marka intani waxay ina tusaysaa oo kaaga filan nin kasto ahlul bid'a markaad aragto in waxa weeyaan aayaadka ilaahay subhanahu wa ta'ala kitaabkiisa uu ku sheegay iyo ahadiithda nabiga calayhi salaatu wasalaam inayna ixtiraamin haba yaraatee wax ixtiraamana ay u hayaan aysan jirin waxaa jira ninka loo yaqaano Fakhruddin ar-Razi wuxuu qoray kitaab loo yaqaano Ta'siis wa Taqdiis kitaabka wuxuu ku tilmaamay uu ka dooday ilaahay subhanahu wa ta'ala man naga sareeyo mise naga ma sareeyo qaacida waxa jira culimada ay tilmaamaan al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala nuuniyadiisa uu ku tilmaamay Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala uu ku tilmaamay bayaan talbiis al-jahmiyya fi ta'siis bid'ihim al-kalamiyya uu ku tilmaamay rag fara badan oo horena way tilmaameen waxa weeyaan shaygu hadii la yiraahdo waa mawjuud qaacida waxay tahay shaygu hadii la yiraahdo waa mawjuud laba midkoodun buu noqdaa imma inuu yahay wax ku dhex jira makhluuqaadkan waa imma inuu ka dhex baxsanaado idan waxa lagu yiri ilaahay subhanahu wa ta'ala laba midkoodina dhaha ama ilaahay makhluuqaadkiisu ku dhex jira sidii jahmiyada ama uu ka dhex baxsan yahay ashaaciro waxay yiraahdeen ilaahay subhanahu wa ta'ala adoomadiisa iyo dadkan makhluuqaadkan kuma dhex jiro kamana dhex baxsano ilaahaasi halku jira halkeed ku taqaana rabbigaas inoo sheeg waa ilaahan jirin ama waa ilaah maaragtay maxaan ku yiraahdaa dhihniya oo maskaxda uu ku jira wax maskaxda uu ku jira weeyaan حقيقة ملا إله أشاعر أي عابدو رن مالك اللي يسكو شاكو إله أي أشاعر عابدو يسو إله حقيقية
أو جرا أو موجود أو خارج عن الأذهان مسكحة كبحسن معها إله سبحانه وتعالى وإله عقل جوجو كل حجرة وحويان ميل وجوجنا أن لجرنين نبي محمد الكوتجي مركو صلاة دينو كيني محو كدوني من فوق 7 سماوات محو كدوني صحابته محي ويديين رسول إلهي وربي جاجي ما أركتود لك ولنطي أشعريو مركا أديدن تهي هوش النوع عاصو كلا وحوين ما صحابات كعقيدة في عن تهادقو يا رجال هلا إصلاح الشوط إلهي سبحانه وتعالى هلا قبقه وحان دمعي مركا انتا سينا كو جبجبيو هذا وبالله توفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.